Jasiiradda Koyam waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu faca weyn jasiiradaha ku yaala Soomaaliya, waana jasiirad runtii leh taariikh fog oo qadiimi ah. Haddaba muuqaalkeena jasiiraddan iyo waxyaabaha ay caanka ku tahay iyo markaa nolosha halkaa ka jirta ayaynu ku dul istaagi doonaa. Soo dhawaada daawadayaal. balse marka hore inta muuqaalkan aan guda gelin daawada aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad laagi loo saarto, sidoo kale aad loo shargareyso si muuqaalku uu gaaro saaxiibo badan oo wanaagsan sidaadoo kale. Halkan waa Hilaal Production oo aad uga barateen muuqaalo xiiso badan. Jasiiradda Koyam waxay caan ku tahay argoosatada, waxaana ku nool qabaa'ilka la yiraahdo Baajooniga oo ka mid ah qabaa'ilada dega Soomaaliya. Jasiiraddan waxyaabaha la yaab kale ee lagu arko waxaa ka mid ah in jasiiraddan ay tahay mid afarta dhinac ay kaga hareeraysan tahay badda, haddana waxaa laga helaa amaba lagu dhaqdaa oo laga heli karaa xoolaha nooc kasta sida geela, ariga iyo lo'da oo dadka ku nool halkaasi ay dhaqdaan. Waa xeeb cagaaran oo indhuhu ay ku doogsanayaan, waana goob dhirtu ay caan ku tahay, mana laha wax kaneeco ah iyo sidoo kale xayawaanada dadka waxyeelada u geysanaya intaba. Waa jasiirad aad u qurux badan kuna wanaagsan dalxiiska iyo kalluunka noocyadiisa kala duwan sida argoosatada oo ka mid ah xayawaanada ku nool badda kuwooda ugu qaalisan. Qiyaastii in ka badan 20 qoys ayaa ku nool jasiiraddan, waxaana dadka halkaasi degan ay noloshooda ku tiirsan tahay kalluunka ay badda ka soo dabtaan iyo sidoo kale xoolaha nool. Luqadda jasiiradda lagaga hadlo waa luqadda Baajooni saafiga ah oo dabcan aad ugu dhow luqadda Sawaaxiliga ah. Sidoo kale waxaa xusid mudan in luqadda Baajooni saafiga ah ay aad u shabahdo luqadda afka Carabiga ah oo dabcan ereyada qaar ayaa laga soo minguuriyey luqadda Carabiga. Marka aad booqato jasiiraddan waxaad ku arki kartaa dhismooyin isugu jira kuwa qadiimi ah iyo dhismooyin casri ah oo dhowaan halkaasi laga dhisay, aadna u qurux badan. Waa jasiirad leh cimilo wanaagsan, sidoo kalena waxay ku wacan tahay dalxiiska maadaama jasiiraddan ay tahay mid quruxdeedu aad u soo jiidanayso dalxiisayaasha halkaasi taga. Jasiiradda Koyam waa dabcan jasiirad dadkeeduna ay u badan yihiin kalluumaysato ku darso oo dadka deegaanku ma jecla in dhirta la jaro, taasi oo jasiiraddu ka dhigtay mid cagaaran oo leh dhir aad u fara badan. Marka aad u baahan tahay anteeno ama in aad hesho internet, jasiiraddan waa uu ku yaryahay internetku, ama waxaad heli karaysaa internet daciif ah, taasi oo sabab u ah jasiiraddan oo ku taala dhul god ah oo ay adag tahay in qofku uu helo internetka uu u baahan yahay iyo sidoo kale isgaarsiinta kaleba. Koyam anteenka ugu dhow oo aad nadoo ka heli karto waxa uu u jiraa qiyaastii 45 kilomitir, taasi oo ka dhigtay mid isgaarsiintu aad ay uga fog tahay dadkeeda oo u badan kuwa kalluumaysato ahna iskuma dhibaan inay helaan isgaarsiin iyo inay la socdaan nolosha dunida iyo sidoo kale dhacdooyinka maalinlaha ah ee ka dhaca dunida inteeda kale. Haddaba daawade, ma jeclaan lahayd inaad booqato ama aad ku noolaato jasiiradda Koyam iyo jasiiradaha kale ee quruxda badan ee dalkeena ku yaala?